بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن أو عن صاحب الميل بود جوكتان وإن سودوينيا وقيبتي لبعض برنامجكي فلينتا فرياشا فلينتا قرشاها أها وإنه مقالك كان كوريي حل قطب سوق عضني يتصاليال راعسنا waxaan maanta muuqaal ka bilaamayaa furaha labaad waa dulqaadka iyo adkaysiga mar haddii uu qofku garto adduunkan waxa loo keenay ee Ilaahay u abuuray oo uu u nool yahay way sahlan tahay inuu ku noolaado nolol raaxo leh dib iyo culaysyad adduumaha ha jiraan aayad quraan ayuu Ilaahay ku leeyahay inuu sheegay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaan marno imtixaan adduunyo oo isku jira cabsi gaajo faqri geeri sokeeye يعوليسي كلو بدن لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون صبرك يطلقات كان ومتكمل على مظهر موجنية قفك إنه فهمسيه وحلون نوريهي وواتو إلى هيري وبشاريك والصبر وبشر الصابرين وحكستو الله ربين لغا قول قارع وإن الله صبره وحال ليلة هذا صفا كستو ديري حالا طلابة أيو كبل وضي كدبكم أنا يسكو بدلي طلابة داس حدان لقادين لما دقاق أيو قفك الربا نفط إنو بروك الرحيسك عبادة ده وحاكوه الرئيب بلغة ترتيب إنو سي ترتيب وبلاوه أو جوغتيو أتكايستو كدب أيو معانك هليه haddii uu muddo dheer joogteeyana waxay u badan tahay inuu gaari doono xilli uu ku raaxaysto camalkii nafta culayska ku ahaa marka hawl kasta oo la qabanayo mid adduun iyo mid aakhiraba waxay u baahan tahay ku adkaysi iyo dulqaad inta nafta ay kala qabsanayso furaha saddexaad caado ka yeelashada hadafka nafta tarbiya ayay u baahan tahay wixii lagu celceliyo ayaa caado u noqdaa xeel dheerayaashu waxa ay dhahaan qofka si uu caado cusub u samaysto waxa uu u baahan yahay inuu ku celceliyo 21 maalin oo si xiga haddii caadadu u hagaagto natiijooyin waaweyn ayay gaaraysaa natiijooyinka yaryar oo la isku geegeeyey ayaa sameeya natiijada weyn marka caadooyinkaaga aad kaga fiiriso weeye ma yihiin kuwo kuu riixaya hiigsigaaga nololeed mid adduun iyo kan aakhirada mahad celinta rabbi joogteynta cibaadada noocyada kala duwan isqorsheynta waxtarka bulshada kobcinta aqoonta shakhsiyadeed iyo mid ummadeed wax akhriska iyo caadooyinka la midka ah oo kuwa loo baahan yahay in nafta la baro furaha afraad yeelashada mabaadi' nololeed waa in aad yeelato mabaadi' lama taabtaan u ah noloshaada oo ku ilaalinaya ku adkayso ilaa lagu aqoonsado sida diintaada in wax kasta kaala qiimo badnaato ayaa loo baahan yahay oo wixii ka hor imanaya aad iska dhaafiso oo aad iska tuurto dhan iskaga tuurto xitaa haddii dhaqaalo badan ku jiro ama dad aad ixtiraamaysay ay ku riixayeen furaha shanaad qaadashada mas'uuliyadda natiijada in badan waxaad aragteen arday imtixaan ku dhacay oo eedeynaya iskuulkii ama macallinkii halkii uu naftiisa eedeyn lahaa qof shaqo codsaday oo markii la qaadan waayey shirkaddii ama hay-addii ku eedeynaya inay musuqmaasuqday lagana yaabo in uusan dabagelin khibradda aqoonta iyo xirfadda qofka guulaystay markaa si buuxda u qaad mas-uuliyadda naftaada natiijada soo baxda ficilada aad samaysana in dusha ka saarin waxa Ilaahay leeyahay walaa taziru waasiratan wisra ukhraa naf kale dembigeeda ma qaadayso furaha lixaad isqiimaynta qaladka ugu weyn ee dhaca xilliga isqiimaynta waa qofka oo naftiisa la barbar dhiga dadka kale qiimaynta noocaas ah waxaa ka dhashay natiijo islaameed doqonnimo ah mana noqoto mid qofka horumar u keenaysa maaha niyad jab iyo farxad la'aan ayaa laga qaadaa shalay haddii aad haysatay shaqo $150 mushaharkeedu yahay maanta aad haysato mid $200 ah horumar dhaqaale ayaad samaysay haddii shalay aqoontaada tafsiirka quraanka kariimka ay ku koobnay 10 juz sanadkanna ay tahay 20 juz
horumar aqooneed ayaad samaysay. Haddii waxbarashadaada maadiga shalay ay fasalka 2 ee dugsiga sare ahayd, maantana tahay fasalka 3, horumar aqooneed ayaad samaysay. Haddii imtixaankii hore natiijadaadu ay 86% ahayd, sanadkanna ay tahay 99.80% tahay, horumar dhanka dhibcaha ayaad samaysay. Ka waran marka aad la barbardhigto dadka, adigoo horumar dhaqaale sameeyey ayaad niyad jabaysaa. Markaad isla barbardhigto qof $1 yahay mushaarkiisu, ma ogid qofka safarka u soo maray isku marxalad iyo duruuf ma tihiin. Saas oo kale, adigoo horumar aqooneed sameeyey ayaadan dareemi doonin dad qof kale isku miisaanto, waayo halbeeg ayaa kaa khaldan. Haddii halbeegu kaa qaldamana, dhib weyn ayay taasi kuu keenaysaa. Waxaa loo baahnaa qofka inuu isku fiiriyo tagtadiisii iyo taagantiisa, tiisii la soo dhaafay shalay ahayd iyo maanta in isku fiiriyo ayaa loo baahan yahay. Sanadkii hore iyo sanadka soo socda maxaa iska beddelay? Booskaagii miyaad xadhisatay? Hore miyaad u socotay? Dib miyaad u dhacday? Adiga isla tartan ee cid kale la tartamin markaad isqiimeynayso. Horumar marka la doonayo waxaa lama huraan ah inay jirto isqiimeyn. Qofka isaga ayaa laga rabaa inuu naftiisa qiimeeyo. Toddobaadkii ugu yaraan mar isqiimee si aad ula socoto xaaladahaaga. U calaamadayso maalin aad inta badan faraaqo leedahay, 30 daqiiqo waqti aan ka yarayn. Dib isku qiimee. Maxaa kuu qabsoomay? Maxaa kaa qaldamay? Maxaa kuu qorshaysnaa? Maxaase hadda kuu qorshaa? Waxa kale oo muhiim ah oo loo baahan yahay markaad tii seexanaysa habeenkii inaad isweydiiso maxaa maanta kuu qabsoomay oo aad soo qabatay. Berrida soo socotana aad sii qorshaysato si aad si habsami leh berri shaqada uga bilowdo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.